nabadda odayaal idin hal tiimba ku soo dhawaada war wixii deegaanada Soomaalida iyo guud ahaan caalamka aan idinka haynay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay maanta kadib markii si degdeg ah looga yeeray madaxtooyada xilli uu furi rabay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada sida ay wararku ku ogaanayno Roobla ayaa si degdeg ah uga baxay xafiiska oo ay xilligaas soo buuxiyeen kooramka inta badan wasiirada xukuumaddiisa waxaana shirka toddobaadlaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya shir gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Khadar Guuleed macada sababta Roobla loogu yeeray filla Soomaaliya hase yeeshee waxaa loo badinayaa inay la xiriirto arrimaha doorashada maadaama wicitaankaas uu yimid wax yar uun kadib markii golaha wasiirada Puntland ay soo saareen qoraal ay ku adkeysanayaan in shirka farmaajo ku baaqay lagu qabto Muqdisho ee aanu ka dhicin Garowe dhanka kale shirka golaha wasiirada ee maanta ayaa waxa lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee howlgabkii iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda xubin guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ah iyadoo loo soo bandhigay qorshaha korontada dalka golaha wasiirada ayaa warbixinta ka dhageystay wasiirka amniga iyo gaashaandhiga taasoo ku aadan xasilinta iyo howlgallada amniga dalka kuwaasoo xaqiijiyay in la dardargeliyo howlgallada lagu sugayo amniga iyo nabadeynta dalka xilligan muhiimka ah ee lagu jiro doorashooyinka sidoo kale uga dhageystay wasaaradda caafimaadka oo iyadu soo bandhigtay xaaladihii u dambeeyay ee caabuqa COVID-19 ee saameynta ku yeeshay bulshada ugu dambeyntii waxa uu goluhu bogaadiyay dadaalka caafimaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo loogu baaqayo in la xoojiyo wacyigelinta bulshada aan ku sii soconay wararka caalamka iyo guud ahaan geeska Afrika ka imaanaya xiisad kale ayaa soo cusboonaatay xukuumadda Nairobi ayaa war cusub ka soo saartay dhageysiga dacwadda badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya taasoo haatan hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ICJ waxaan halkan isugu keenay arrin inoo muhiim ah dal ahaan iyo dad ahaan iyo qaran ahaanba arrintaasi waa arrin ku saabsan in shacabka Soomaaliyeed ku wargelino dacwaddii badda ee laynagu haystay baddeena ee soo bilaabatay 2014 aynu xaraynay dacwaddeeda ee maxkamadda cadaaladda dunida ICJ aynu keenay kiina shalay way soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud oo soo saaray oo leeyahay ma iman karo sababtoo ah waxaan laga xaday maabnoo muhiim ah oo aanu malaynayno inay dadkaanu ishayna gacantooda yani wax iska khuraafaan waxaan kale ku doodeen oo cajiib ah oo la yaab leh sheekashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiyiinta qaar kamid waxa weeye inaanay dawlad sharciga ka jirin dalka Soomaaliya Kenya ayaa qortay codsi cusub oo ay ku doonayso in markii afraad dib loogu dhigo kiiskaas oo muddo soo jiitamayay sida uu shaaciyay wargeyska caanka ah Daily Nation wargeyska ayaa sidoo kale daabacay in Kenya marka hore damacsan tahay inay u doodo dhul dhinaca bariga ah oo ay sheeganayso inuu ka maqan yahay si loo xaliyo xukuumadda Nairobi oo soo bandhigtay qariirad ay ku sheegtay in dhinaca bariga uu dhulku kaga maqan yahay gudaha Soomaaliya ay qorshaheedu waxa uu yahay in marka hore arrintaas ay xaliyaan labada dawladood kadibna la gudagalo kiiska badda ee ICJ talabkan ka soo baxaya dawladda dalka Kenya ayaa ku soo aadaya iyadoo oo dhageysigeeda dacwadda loo ballansan yahay 15 bishan soo socota March sanadkan 2021 si kastaba hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo la bedelay hogaankii maxkamadda ee Soomaaliga ahaa Cabdiqawi Axmed Yuusuf inkastoo uu weli ka mid yahay sagaalka garsoore ee ka howlgalaya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ICJ adawdayaal ku soo dhawaada markana inaan isla eegno qodobka ah cidda xaq u leh shirka qabsoomidiisa iyo inay qabato shirka uu ku baaqay madaxweynaha waqtigii ka dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in 15 Febraayo ay isugu yimaadaan isaga iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaa wajahaya caqabad xitaa ka hor inta aanu bilaabmin
shirkaas oo farmaajo uu iclaamiyey inuu ka dhacayo Garowe ayaa waxa ka soo horjeestay Puntland, Jubbaland, gudoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha mucaaradka ah oo dhammaantood doonaya inuu shirku ka dhaco Muqdisho. hase yeeshee dowladda federaalka ayaa ku gacan saartay baaqyadooda, waxaana wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube uu ku adkaystay in shirku ka dhacayo Garowe. ma cadda haddii farmaajo uu Garowe ku qaban karo shir uusan raalli ka ahayn Siciid Deni, balse taas ka hor su'aal taagan ayaa ah yaa xaq u leh asteynta madasha shirka lagu qabanayo. Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha bariga Afrika ayaa qaba in farmaajo uu xaq u leeyahay in shirka uu ku qabto meesha uu doono. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka meel kasta ayuu shirka ku qaban karaa, mana diidi karo. Deni madaxweynaha Garowe shirka kuma qaban karo, Deni ayay ceeb ku tahay, ayuu yidhi Dr. Cabdiwahaab. arrintan yaa ah in saamileyda siyaasadda ay ka qayb gasho kulankaas ayaa khabiirkan waxa uu sheegay in mucaaradku aanay qayb ka ahayn heshiiskii 17 Sebtembar la gaaray ee gundhiga u ahaa shirka la shaaciyey. dhanka kale Cabdiraxmaan Abdishakuur oo ka mid ah ragga doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa bardiifaysa Facebook ku sheegay in shirka uu madaxweynihii hore Farmaajo soo tuuray koox ka mid ah beesha caalamka la wadaan uu ku doonayo inuu iskaga hor keeno Galmudug iyo Puntland, isla markaana uu ku tusiyo inuu wali madaxweynaha yahay, sidoo qoraalka u dhigay. dhanka kale Dr. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Baadiyo oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ayaa rumaysan in arrinta madasha shirka laga heshin karo, balse ay muhiim tahay in qabsoomo oo shirka oo heshiis lagu gaaro. 15 bisha Febraayo lagu dhawaaqay waxay soo celinaysaa rajada shacabka. meesha lagu qabanayo iyo ka qaybgalayaasha waa arrin farsamo oo laga heshin karo. waxaa muhiim ah in Soomaalidu shirto kuna heshiiso qaab iyo waqti doorasho, haddii kale waa la meerinaya, ayuu yidhi Dr. Baadiyo. muddada xilhaynta madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa u ekayd 8 bishii February. mucaaradku waxay sheegayaan inaysan madaxweyne u aqoonsanayn, dowladduuse waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. ma jiro waqti la og yahay oo ay doorasho dhici doonto. wasiirka warfaafinta Dube oo xalay la hadlay BBC-da waxa uu mar kale ku celiyey in shirka uu iclaamiyey madaxweyne Farmaajo uu ka dhacayo Garowe, balse shirka golaha wasiirada ee Puntland ee maanta ayuu maamulku mar kale ku go'aamiyey in shirkaas lagu qabto magaalada Muqdisho. xukuumadda Puntland ayaa ku doodaysa in shirkaas laga qayb galayo dhammaan saamileyda siyaasadda dalka iyo beesha caalamka, waxaana go'aanka ku raacsan Jubbaland, gudoomiyaha aqalka sare iyo midowga musharaxiinta, sida ay ku shaacisay qoraallo ay ku soo saareen maamul goboleedyada taabacsan dowladda federaalka. koonfur goboleed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa weli ka aamusan isku turtuurka shirkan uu iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo.